أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وارض اللهم عنا وعن صحابة نبينا محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهدي نبينا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan oo aan jeclahay in aan kaga waramo ciwaanka aan barnaamijkan u bixiyey oo ah maxaa ka saxa taariikhdii sheekh isxaaq. sheekh isxaaq horta waayo maxaa igu kalifay inaan ka hadlo mawduucan, ma arrin diimeed ba waa inta badan waxaana lagu bartay inaan ka warramno umuuraha ku saabsiisan diinteenna iyo maaragtay waxyaala ku saabsiisan markaa qofka muslimka ah cibaadooyinkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa. maxaa maanta aan ka doonnay qabaa'il, weliba khaasatan qabaa'ilada soomaaliyeed. su-aalahaasi waa su-aalo ay inta badan ay walaaladu isweydiin doonaan. jawaabtana insha allah wixii ilaahay ii fudaydiyay ayaan kaga jawaabi doonaa. marka ugu horeysa walaalayaal, maxaad uga hadlaysaa arrintan? waxa weeye jawaabteedu iyadoo kooban. horta marka nasab ama qabiil laga hadlayo waa wax caadi oo soo arooray oo diinteenna asal ku leh. qofkuna haddii uu qabiil ama qabiilkaasi hada qabiil soomaaliya ama qabiil carabeed ama qabiilku doonaba ha ahaado, haddaad ka hadasho maaha qabyaalad, bal ee barashada qabiilka inaad qabaa'ilada kalena barato qabiilkaagana aada barato waxay ka mid tahay waxyaalaha ka hortegaya qabyaalada iyo cunsurinimada. sidaa darteed saxaabada rasuulka waad la yaqaanaa. abubakar asidiiq wuxuu ahaa nin caan ku ah aqoonta ku saabsiisan nasabka iyo dhalashada reer qurayshe, oo rasuulka ilaahayna uga markhaati kacay sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi ina abaabakara aclamu qurayshin biansaabiha. abubakar saxaabiga la yidhaahdo isagaa reer quraysheed nasabkooda iyo abtirsiintooda ugu yaqaana. marka abtirsiinta iyo nasabku waa aqoon, waana cilmi la barto weeyaan, waana muhiim. mana aha barashada nasabka iyo qabiilka inaad barato ma aha ceeb, mana aha qabyaalad, bale anigu waxaan aaminsanahay qofku hadduu nasabkiisana uu barto iyo qabiilkiisa uu barto, qabaa'ilada kale dadka muslimiintana uu barto, inay arrintaasi ka hortegayso cunsuriyadda qabyaalada ah. waayo haddii qofku aanu qabaa'ilada kale waxba ka aqoonin oo jahli uu ku sugan yahay, waxa arrintaasi ay keenaysaa inuu marar fara badan maaragtay uu qabaa'ilada kale dulmi u geysto ama dadka kale maaragtay wax aanay geysanin uu dusha uu ka saaro. waxaan ogsoonahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu dadkan bani aadamka uu ka yeelay qabaa'ilo, uu ka yeelay shucuub kala duwan. wajacalnaakum qabaa'ila shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. waxaan idinka yeelnay shacab kala duwan. shacabka wax looga jeeda yani wadano kala duwan. maaragtay maraykanku waa maraykan, yurubku waa yurubiyan, soomaali waa soomaali, carabtu waa carab. shacab kala duwan iyo shacabkiiyo laftigiisu siila maxay qabaa'ilooyin iyo jilba sii kala leh. marka sababta ilaahay sidaa uga yeelana waxa weye litacaarafuu, si ay dadku isu bartaan oo ay aqoon isu yeeshaan. dee maxamedkii reer hebel iyo gabadhii faadime dee reer hebel, intaasaa ilaahay ugu talagalay adduunka inta la joogo. aakhirana waxba ma taro dabcan qabiilku, falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasaa'aluun. nasabku maalintaad dhimato ayaa kuugu dambaysa nasab oo magaca aad qaadanayso. qofka muslimka markuu dhinto waa meyd weeyaan. dee marka ugu fiican ee akhlaaqda la wanaajiye marka xabaasha qofka iilka la dhigaya waxaa la dhahdaa maxay, hilbaha ha la dhigo. waa marka weliba akhlaaqda la wanaajiyo. laakiin asalku meyd baad magacaagii iyo qabiilkaagii wixii o dhan qofku markuu dee uu dhinto saasuu maaragtay uu ku waayayaa. aakhirana ilaahay wuxuu dhahay nasab iyo dhalasho iyo abtirsin iyo waxaasi ma jirto, iyo qabiil la dhahayo adigu reer habeel baad tahay jannadaad gelaysaa waad ku badnaanaysaan, iyo qabiil la dhaho idinku ahlu naar baad noqonaysaan. arrintaasi ma jirto. qof walba camalkiisii ayuu maaragtay uu janno ama naar uu ku gelayaa. rasuulka ilaahina wuxuu dhahay sala allahu calayh wasalam man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu. qofkii
marka camalkiisu uu gaabis yahay oo uu camalkiisu darajadiisu ay gaaban tahay, qabiilkiisa ama nasabkiisa ama abtirsiintiisu ma dheeraynayso oo meel fog ma gaadhsiinayso, oo qabiilkaagu waxba kuma taraya aakhiro. ayadoo taasi ay jirto aanu qabiilku aakhiro waxba kuu taraynin, adduunyadana ilaahay uu yidhi qabiilka waxaan u yeelayba inay dadku isku gartaanoo dee hebelkii reer hebel iyo maxamedkii reer hebel iyo faatimadii reer hebel intaa loogu talagalay, haddana ummadda nebi maxamed ma daynayso mana joojinayso iskufaanka iyo duridda qabyaaladda, inay qabaa'iladana duraan sidoo kalena marka isugu faanaan qabyaaladda. nebigana wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam, afar ummadaydu ma daynayaan oo ka mida umuurtii jaahiliyadda, yacni jaahiliyadda wixii dadkii islaamka ka horreeya laga soo gaadhay ma daynayaan ummadda nebi maxamed. afartaa markaa waxaa ka mid a alfakru fi laxsaabi waaldacnu bilansaab, waa qofku inuu qabiilkiisa ku faano, waa inuu reernimadiisa ku faano, waa inuu maaragtay sidoo kale reeraha kalena uu duro oo maaragtay waxaanay geysanin ama dulmi aanay geysanin oo dusha ka saaro. marka arrintaasi waa arrin jirta weeyaan oo ilaa iyo qiyaamadu uu ka dhacayso ummadda nebi maxamed dayn mayso isagu faanka qabiilka iyo markaa duridda qabaa'ilada kale. qabaa'ilada markaa aan ka hadlayno waxa weeyaan khaasatan qabiilku hadduu qabiil soomaaliya uu yahay ama qabiil carbeed uu yahay ama qabiil farisiya uu yahay ama qabiil kurdiya uu yahay ama qabiil barbariya uu yahay, nooc doonaba ahaadee, hadduu qabiilkaasi uu sheegto ahlulbeyt, uu dhaho anigu ahlulbeyt baan ahay oo waxa weeyaan xasan iyo xusein baan ku abtirsadaa, ama caqiil bin abi aalib baan ku abtirsadaa, ama cali ibn abi aalib baan ku abtirsadaa, ama cabaas ibnu cabdilmutalib ayaan ku abtirsadaa, ama si guud reer bani haashim iyo reer mutalib baan ku abtirsadaa, waxay u baahan tahay burhaan. qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. qabaa'iladaasina hadday yihiin soomaali, hadday yihiin qabiilka hawiye ama daarood ama dir, ama uu yahay ciise, ama uu yahay gabooye, ama uu yahay digir iyo midhifle, noocaad doonaysid soomaali ka ahaw haddaad sheegato, ama ashraaf noqo, noocaad doonaysid ka ahaw haddaad sheegato maaragtay qabiilka aad sheegato ahlulbeyt aad sheegato, jawaabta aan ku weydi su-aasha aanu ku weydiinayna waxa weyn daliilkii noo keen. waayo ahlulbeytka wuu ka duwan yahay qabaa'ilada kale. muxuu kaga duwan yahay? sababtoo ah axkaam baa ka dhalata. wali su-aashii markii aan bilaabiye aan idinku dhahay maxaad arrintan uga warramaysa, waxaan uga warramaynaa lianna waxway diintayada ayay sal ku leedahay, diintayada macaan ayay sal ku leedahay. umuurahani waa umuuro noo sharciyeysan oo diintayada shareecadeeda ku taalla. marka qabiilku haddii uu yahay ahlulbeyt waxa weye axkaam ayuu leeyahy. axkaamtaas qaar ka mida waan sheegi doonaa insha allah, laakiin ugu yaraan haddaan mid iyo laba idiin soo qabto, dee qabiilka sheegtay inuu yahay ahlulbeyt dee waa inuu sakada iska daayo, waa inaanu sadaqadana qaadanin, sakana aanu qaadanin wey. subxaan allah. ka waran haddii qabiilkaasi uu yahayba ahlulbeyt oo uu runba ay tahay oo xaqiiqo ay tahay, sakana uu cuno hadhiyo habeen oo dadka sakada uu ka urursado, uuna sadaqada dadka ka urursado, oo aanu ogeynba inuu maaragtay ahlulbeytka laga xaaraantimiyo sadaqada iyo sakada, sow dembi weyn maaha? waa dembi weyn weeyaan. sidaa darteed waa muhiim qofka muslimka ah inuu ogaado arrimaha ku saabsiisan ahlulbeyt. ahlulbeytku way ka duwan yihiin qabaa'ilada kale. haddii qabiil soomaaliyeed iminka uu sheegto uu dhaho anigu reer bani xaniifaan ahay, ama anigu reer bani cadi baan ahay, ama reer bani tamiim baan ahay, ama reer qudaacaan kasoo jeedaa, ama anigu aragto reer bani maqsuum baan ku abtirsadaa, ama saxaabada kale rasuulka ay dhahaan waan ku abtirsanaa, khaalid baan ku abtirsanaa buu reer bani maqsuum baan ahay, ama wuxuu hi cumar bin khataab baan ku abtirsadaa, ama zubayr, ama dalxa, ama cabdiraxmaan bin cawf, ama sacad bin abi waqaas, qabiilku doono oo maaragtay uu ku abtirsado carbeed, dee umuurahan mabaanaan geli lahayn. laakiin maxaan umuurahan u galnay? umuurahan waxaan u galnay qabiilku haddii uu sheegto ahlulbeyt baan ahay, oo uu dhaho anigu cali ibn abi aalib baan ku abtirsadaa, oo uu dhaho anigu reer bani haashim ayaan ahay, waxaan leenahay okay, haddaba si aan adiga iyo reerka aad sheeganaysa aan ugu caddayno dadka muslimiinta inay axkaam arrintani ay ka dhalanayso, waa inaad caddayn ii keentaa, waa inaad daliil ii keentaa, waa inaad xujo ii keentaa, waa wax cilmiyeysan waa inaad ii keentaa, ma aha oo keliya sheegasho iyo zacmi. waayahay ahlulbeytku muxuu kaga duwan yahay qabaa'ilada kale? wuxuu kaga duwan yahay kow, nebigaa noo dardaarmay sala allahu calayh waalihi wasalam, udakirukum allaha fi ahli beyti, udakirukum allaha fi ahli beyti, udakirukum allaha fi ahli beyti. 3 jeer buu ku celiyay nebigu sala allahu calayh wasalam. waxaan idin xasuusinayaa ehelka beytkayga, waxaan idin xasuusinayaa dad yahow haddaad tidin ummaddii nebi maxamed, ehelka beytkayga, qoyskay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laydin xasuusinayaa, oo ah inaan la dulmiyin, xaqoodana la siiyo. waayahay ilaahayna qur-aanka uu ku tilmaamay subxaana wa tacala ahlulbeytka,
وأهل البيت waxa ugu weyn xaasaskii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilaahina arrintooda quraanka buu kaga waramay ilaahay muxuu yiri inma yuriidu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tadhhira وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا haweenkii nebigu waa la ka warramay oo leeyahay guryihiina jooga gabdhayow oo sidoo kalena ilaahay salaadiisa u tukado oo ilaahay rasuulkiisa adeeca waxaas oo dhan waxa xikmadda laga wadaana ilaahay wuxuu yiri ilaahay wuxuu rabaa inuu rijsiga iyo xumaanta idinka dheereeyo idina daahiriyo oo idina nadiifiyo marka aayaadka quraanka waxayna ugu cad ahlul baytkii oo ay ugu horeeyaan xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam in ay sharaf gaara ay leeyihiin oo ay maaragtay qadarin gaara leeyihiin oo ixtiraam gaara ay leeyihiin sidoo kale xadiiska nebiga xadiiskii al-kasaa xadiiskii maaragtay nebigu uu marada dusha ka saaray cali ibn abi talib iyo xasan iyo xusein iyo faatima ridwaanullahi calayhim jamiican isaguna wuxuu soo hoosgelinaya inay yihiin ahlulbeytka ridwaanullahi calayhim oo ahlulbeytku markaa dee arrintaa khaaskaa bay leeyihiin waxaa kaloo ka mid a axkaamtii ka dhalanaysa qofka hadduu ahlulbeyt yahay dee sekada ma cuno zake ma cuno dee zakada iminka dadka laga soo qaado zake ma cuno marka haddii iminka qabiil daarood ah matalan oo kale magaca haddii aan ku dhufano uu dhaho anigu reer waxaan ahay caqiil bin abi talib baan ku abtirsadaa dee su-aashan weydiinaya waxay tahay walaalkayga muslimka ahow haddii aad ku abtirsato zake maxaa kuu geeyey qabiilka maaragtay aan iminka ka warramayno oo ku abtirsada sheekh isxaaq haddii aad tidhahdo ahlulbeyt baanay maxaa kuu geeye sadaqo maxaa zake kuu geeyey maxaa sadaqo kuu geeyey miyaan ogsoonayn arrintaas inay xaaraan ay tahay haddii aad ahlulbeytba tahay ayba runba dee tahay marka arrimahaasi waa waxyaalaha nagu kalifay inaan ka warramno nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii maaragtay saxiixa ahaa wiilkiisii yaraa oo awowga u ahaa oo xasan bin cali la dhaho waa wiil yar oo aan qaan gaadhin ayaa timir sadaqa afka geliyey waa timir sadaqo waa ilmo yar oo aan qaan gaadhin ayaa timir sadaqa afka geliyey rasuulku wuxuu ku dhahay kikh irmi biha waar tuf buu ku yidhi tuf ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam amaa calimta miyaanad ogeyn anna lanaakulu sadaqa inanaan sadaqada cunin miyaanad ogeyn xasanow waa ilmo yaroon qaan gaadhin baa lagu leeyahay timirta tuf miyaanad ogeyn inaanaan sadaqada cunin haye ka waro qofkii waynaaye qaangaadhka haddii ahlulbeyt uu yahay qofku dee sadaqa ma cune zakada ma qaato waana laga xaaraantimeeyey nebiguna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam annagana looma xalaalaynin sadaqada haddaan nahay ahlulbeytka ahlulbeytkuna waayo ahlulbeytkuna waa reer bani haashim waa reer bani haashim iyo reer bani mutalib labada qabiil baa maaragtay ahlulbeyt ah oo nebiga qoyskiisa ah oo qaraabadiisa ah oo axkaamtaasi ay ka dhalanaysa waxaa kaloo ka dhalanaya axkaam kale bedelkeeda mar haddii laga xaaraantimeeyey zakada iyo sadaqada inay cunaan waxa kale oo loo baneeyey inay qaataan khumusul akhmaas khumuska yacni markay dadka muslimiinta ay dagaalamaan wixii ay soo khaniimaystaan 5 meelood baa loo qaybinaya 5taa meelood meelshiis marka loo qaybiya meel ka mid a ayaa haddana 5 loo qaybinaya qayb baa waxaa la siinaya marka qaybtaas waxaa la siinaya ahlulbeytkii oo maxaa loo siinayaa sababtoo ilaahay baa ugu bedelay maadaama sadaqada iyo zakadii alla ka xaaraantimeeyey bedelkeedii alla wuxuu ugu bedelay khumusul akhmaas 5tii la qaybiyo qaybtii ka soo hadhay ayaa la siinayaa ahlulbeytka arrintaasina qur-aankana way ku caddahay maaragtay sunnadana uu sheegay qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay suurat lanfaal markuu ka warramayey fayga ama markuu ka warramayey rabbi haniimada faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil ilaahay haniimadii la qaybiyo khumus 5 meelood hal doo ka mida yani 5 qaybood marka loo qaybiyo qayb ka mida waa 20% weya 20% ayaa waxaa iskale 20% ayaa loo qaybinayaa 5 qaybood baa loo qaybinayaa ilaahay rasuulkiisa oo isku hal meela ilaahay xoolo ma qaato subxaanahu wa tacaala waa isagii baa qaniya rabbi subxaanahu wa tacala marka xoolo ma qaato marka ilaahay rasuulkiisu way wada socdaan oo hal meel ah iyo walidil qurba qaraabadii nebiga marka aniga hay weydiinin ha igu dhihin qabiilkan maxaad uga warrantay ilaahay baa yidhi ka warrama walidil qurba qaraabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qaraabada rasuulka marba haddii qur-aanka ilaahay uu ku sheegayba waa waajib inaad laga hadlo waana waajib in maaragtay ciddii ahna maaragtay loo caddeeyo la dhaho warde dadkaasi waa ahlulbeyt weeyaan kii aan ahayna dee been ama sheegayana in dadka loo caddeeyo waxaas inay war beena ay tahay oo aanan waxba ka jirin oo aan dadkii la jara habaabinin marka ha i weydiinin oo ha igu dhihin
maxaa looga hadlay waxaa looga hadlay leanna qur-aankay ku taallaa diintay ku taalla ahlulbeytku walidil qurba qaraabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dalool ka mida ayay helayaan khumusul akhmaaski walyataama walmasaakiina wabni sabiil agoontuna dalool bay helaysaa ama qayb bay helaysaa masaakiintuna qayb bay helaysaa qofka socotadaasina qayb bay helaysaa isla aayaddaas macnaheedu mar labaad ayuu kusoo noqday suuratu lxashri ilaahay markuu ka warramayey maa afaa allahu calaa rasuulihi minhum ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نفس النوعيا يعني آيات دي هوري سورة الأنفال كترت انتي أي كورنتي أي إلهي وحوري أنفالك أو أمارة فايقي أما غنيمة دي وحالة سنيا من أهل القرى فلله إلهي ولرسوله رسولك سوى ودا سعدان لبداس إلهي رسولك سوى هل ضلال هاي ياكو حق ضلال كلابد ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل يا أغونتي يا مساكينتي يا صدوك تدكي سعوت هذا شنتها قيبوت بالسين يا خمس الأخماس شن قيبوت مركا قريمة الله قيبيو قيب تصوها دي واه بقول كيبا لباتن أيا شن الله قيبين يدتنا 5% 5% of 100 يعني بقول كيبا شن ayaa waxa la siinaya dadkii markaa waxa weeye ahlul bayt marka hadii qabiil Soomaaliyeed uu dhahaan ahlul bayt baan ahay de hadaba yaan laga qadinin hadii dad muslimiin oo Soomaali ay wax soo qaniimaysto de hadda qaniimada qaybad ku yeelanaysa laba sidoo kale waxa khatar ah de sadaqada iyo zakada qaadan maysid ogsoonow oo masaajidada ma dhahaysid waxay siiyayo tuugsan maysid oo wax baryi maysid iska dhaaf hadaba taas inay muslimiintu ay wax bixiyaan ama sadaqa ay bixiyaan gaaladu sadaqooyinka ay bixiyaan bay qaataan oo hay-adan aad ka qaadaystay sadaqadeeda ceelka ku qoday iyo hay-adan aad maaragtay laamiga ku dhistay iyo wadada ku dhistay iyo tan guryaha ku dhistay iyo xoolihii kaniisadaha laga soo ururiyay ayaad cuntay iyadoo laga xaaraantimeeyay xoolihii muslimiinta xalaasha ah iyo sadaqadii iyo zakadii haddana waxaad cuntay xoolo meel kale laga soo ururiyay hay-ad ay bixiyeen وخطر يا عجيب يلا يا يدل لا حول ولا قوة إلا صدقة مسلمين تي زكاة مسلمين تابا لقى حرموا لي عوني ميسان كورنا صدقة يقف عن مسلم باهينا نسأل الله السلامة والعافية إلهي من ودي سنة نبتقلية عافيمات أرنت وحا كلو نقول اللي فينا كورمنو قفوا هدي آنو أهين قبيل أهل البيت أما قبيل كان وشيغان يهدي آنو أهين ودنبي وين أو دنبيدا واوين اللي قال كميدا بل waxay gaarsiisan tahay gaalnimo baro fiirsada xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu dhahay alayhi salatu wasalam xadiiski abu dar radiyallahu anhu wuxuu yiri waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh laysa min ar-rajuli lidda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar ma jiro nin sheegta cidaan aabihi ahayn ku abtirsada cidaan aabihi ahayn oo og arrintaana illa kafara wuu gaaloobay ninkaas ninka ku abtirsada cidaan aabihi ahayn isagoo og kafara wuu gaaloobay وحديث صحيح البخاري ومسلم كما قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار قفك شيء قليل آنو أهين أو نصب يدل شوح كدحياني ترين فليتبوأ مقعده من النار هاد يارصد بوسكي ونار تكجلي نار تقول ريدي ودكوتشر تامر هاد قبيل آنا دهين aad sheegatay naarta waad gashay si xaadxaado meeshii aad ka galeysay qolkii aad ka galeysay kaabadii aad ka galeysay mid hoosaama mid dhaxa naarta already waad gashay falyatabawa maq'adahu min an-nar had yaarsado booskii uu naarta ka galay buu dhahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam waayo kaasi waa qofka qabiilaan oo ahayn sheegtay weeyaan waa qofka aabaan dhalin dhaha aabahaas ay dhalay weeyaan nacuudu billah سادرتي إلهي قرآن كونه وشك سبحانه وتعالى إلما يرى كستور دشي قف كستور دشي وين أبيه لو يرى أباها هذا إبليس إن إبليس هذا أمين العفريت هذا أمين مارود هذا نوع الضرب هذا الشياطين إن فرعون هذا ضنا هذا فرعون هكذا أباها اسمه بدليس إن هبلهم بدنا قنيس ادعوهم لآبائهم بو إلهي كل سورة الأحزاب وأبياش ودو يرى أباها هديو كذا أباها بلغو يريه أما تشين هذا أما شيطان هذا أما نيوان أحسن هذا أما ننحن هذا أباها كويهم بلغو يريه سيدا درت النبي نوح نوشك قفكو هدي أباان دالين عيد أنا به سأهين هدو شيكتو كفر وقالوا ببيو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كنا ما حديث ماركتين
lagaga been abuuranaya nebiga waxa uu ku yaallaa labada kitaab ee ugu saxiixsan kutubta sunnada nebiga saxiixulbukhaari iyo muslim muttafaqun calayhi waa xadiis la isku waafaqay oo culummada islaamku ay isku waafaqeen nas'al allahi asalaamata walcaafiya wallahi xataa anigu markii hore aanan ogeyn markaan xadiidka arkay waan naxay waanan maaragtay murugo badanna waan dareemay limaada leanna soomaalida imise isku dhiibta markay isku dhiibaysa qurbaha ay joogto imise isku dhiiba maaragtay qabaa'illa aanay ka dhalanin imise isku dhiiba aabbayaal maaragtay aanay ahayn nas'al allaha asalaamata walcaafiya ilaa kafara buu yihi nebigu u gaaloobay qofka hadduu sidaa yeelo sala allahu calayhi wasalam culummadii markii la weydiiye waxay dhaheen may kufrigan kala qaadaynaayo waa gaalnimo yar iyo gaalnimo weyno waxweeye waa gaalnimadii yarayd weeyaan marba haddii adiga gaal lagugu tilmaamo lihi kafara wuu gaaloobay oo culummadu marba qiila ay ku raadisay tidhi may waa gaalnimo yar ama waa gaalnimo weyn dee already dembi weyn waad gashay nacuudu billah wuxuu la mid yahay sidii qofkii salaada ka tegey ee nebigu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam man taraka salaata faqad kafar qofkii salaada ka tegay wuu gaaloobay dabadeedna culummadii ay dhaheen may waa gaal rasmiya weeyaan oo diintii uu ka baxay qolana ay tidhi may waa gaal laakiin wuu yar yahay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin wuu weyn yahay iyo wuu yar yahay laysku qabsaday oo uu dhahay maaragtay fadiilatu sheekh maxamed dirir xafidahullah sheekh maxamed dirir muxuu yidhi marba haddaad miiska khilaafka saaran tahay bal u fiirsa arrinta culummadu waxay dhahaan culummada islaamka weliba khaasatan sheekh fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir waa sheekh maaragtay caalim weyn iyo aqoon-yahan weyn qowlkiisa iyo hadalka uu dhahay xikmadda uu jediye wallahi waa arrin aad iyo aad u cajiiba marba haddaad saaran tahay buu yihi sheikhaasi miiska khilaafka way ku dhammaatay miiska khilaafka qofka hadduu fuulo salaadii uu ka tago oo culummada isku qabsato ma waa gaal weyn iyo waa gaal yar de khalaas miiska khilaafka haddaad saaranta iminkana miiska khilaafkunbaad saarantahay sidii sheekh maxamed cumar dirir uu sheegayo dee mar haddii aad qabiil kale aad sheegatay oo aanad ahayn ama aabba aan ku dhalin aad sheegatay wuxuunbaad saarantahay miiskii khilaafka war waa gaal weyn iyo waa gaal yar ayuunbuu udhexeeya nacuudu billah nasal allaha asalaamata walcaafiya marka xadiidkana maxaan usoo qaadan waxaan usoo qaadanaynaa dee ma rabno qabiil dhan oo muslin ah in lagu tuhmo la dhaho war waa ama gaalo waaweyn ama waa gaalo yaryar nacuudu billah ilaahay baan ka magan gelinay subxaanahu wa tacaala sidoo kale sababta aan uga hadlayna waxa ay tahay fara badana inta qabiilka ahlulbeytka sheegatay alle ciiddaa ka badan ah waar hedha miyaan laga gaboobaynin maayo lagama gaboobayo ciiddaa iyo tiradaasay ka badantay carab baa kow ka ah dadka ugu badan ee ahlulbeytka sheegta mana aha ahlulbeyt ayagoo aan ahayn waxaa ka mid ah farisiyiinta kuwan eraaniyiinta ee cimaamada madow xidha ku kastoo cimaamad madow xidhaa wuxuu ku dhahay reer bani haashim baan ahay waa cajiib iyo layaab waa soomaalida ka mid a reer bani haashim baan ahay buu ku leeyahay subxaan allah kurdi baa ka mid a oo hindi baa ka mid a oo barbariyiin maaragtay libiyaana oo aan carab ahayn oo barbari ah oo ama libiyan ama morockiyan ama algeriana anigu waxaan ahlulbeyt ahlkii beytkana saadadan ka mid ahay ashraaf baan ahay shariif baan ahay nasal allahi asalaamata walcaafiya wallahi waa cajiib ninkii hadlay waa kii yidhi waar hedha nebi maxamed carab ayuu ahaa oo nin carbeed ayuu ahaa maxaa carruurtiisii ka wada dhigay cajam wallahi waa cajiib yalayaa ila nebi maxamed wuxuu ahaa nin caraba sala allahu calayh waalihi wasalam rajul caraba buu ahaa nin carbeed buu ahaa maxaa carruurtiisii ka wada dhigay cajam eeraan maxaa ka dhigay carruurtiisi nebigeenna maxaa ka dhigay carruurtiisa barbaraawi qabailka barbariyiinta maxaa ka dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa soomaali wallahi waa cajiib yalayaab waa wada cajam nebi maxamed waa carab carruurtiisina waa cajam wallahi waa wax lala yaabo taariikhda aadamaha haddaad taarikhda islaamka dib u fiirsataan inta qof ee sheegatay inay ka soo jeedaan ahlulbeytka ciiddaa iyo tiradaasay ka badan yihiin mid iyo laban tusaale idinka soo qaadanaya waxaa ka mid a dowladdii faatimiyiinta ee shiicada ahayd maxay sheegatay waxay sheegatay in ahlulbeyt ay yihiin aslanna waxay sheegteen yani adugu sida balqaabka ay u alifeen u fiirsan subxaan allah markii ugu horreysay ninkii aasaasay wuxuu sheegtay inuu kasoo jeedo nin la dhaahdo cabdillaahi binu jacfar binu maxamed oo ahlulbeytka halkaa ka gelaya jacfar asaadiq halkaa ka gelaya oo cabdillaahi wiilki jacfar baa wuxuu dhalay maxay wiil la dhahdo cabdillaahi jacfar dhowr carruur u dhalay dabadeedna markuu yidhi wiilkii jacfar asaadiq cabdillaahi la dhaho wiilkaas ayaa i dhalay ayaa dadkii waxay dhaheen inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun wallahi waa yaab iyo cajab iyo cajaayib waar cabdillahi misaga carruurba dhalay ninkan aad sheeganaysad leedahay waa waxa weeyaan cabdillaahi baana dhalay aad iska sheeganayso cabdillaahi wiilba muu dhalin gabadh yar oo keliya u dhalay gabadhiina way dhimatay wuxuu ihi oo ma waxay nugu haysaa annaga ma culays bay nugu haysaa ka bedel oo haddana saar wuu ka bedelay cabdillaahi iyo wuxuu sheegtay maxay wuxuu sheegtay ismaaciil binu jacfar deetana shiicadii faatimiyada ahayd ee uu maaragtay waxay noqotay ismaaciiliya shiicadii ismaaciiliyada markii horena cabdillaahiya ayay ahayd
yacni bal u fiirso sida loogu cayaarayo ehelka beytka rasuulka sala allahu calayh wasalam shiicadan iminka raafidadan ninkii khumeyni la dhihi jiray ee iiraan ee shiicada aasaastay dee wuxuu sheegtay isagoo iiraaniya oo shiiciya oo maaragtay oo raafidiyaba wuxuu sheegtay wuxuu yihi ahlulbeyt baana wa kuwa cimaamadaha midmadow xidhana waxay dhahaan ahlulbeyt baana ninkii saaxibu zanj ninkii zanj nin maaragtay dowladda cabaasiyiinta la dagaalami jiro magaalada basro qabsaday ahlulbeyt buu sheegtay oo markaasa la war ku maatay markaasuu nin nool uu sheegtay uhi ninkaasaan ahay markaasuu ninkii noolana u yimi waa ma aniga tahay laa xawla walaa quwata war goormad adigu aniga noqotay buu yidhi nacuudu billah markaa sheegashadu weligeed ba iska jirtay carabtu intay timaado soomaalida waa u sheegan kartaa inay yihiin maxay inay yihiin ahlulbeyt inay yihiin maxay ahlulbeyt oo magaalada muqdisho ama koonfurta soomaaliya kahor intaanu talyaanigu qabsanin dee nin la dhihi jiray aw qarbash magac saasa lahaaba haysan jiray oo dowladda cammaan ka tirsanaan jiray oo u sheegan jiray inuu yahay maxay ahlulbeyt oo ahlulbeyda marka weligeed ba soomaalida waa loo sheegan jiray inay ahlulbeyt yihiin subxaan allah nasal allah asalaama marka way iska badan tahay ahlulbeytka in la sheegto intaas iska hordhac bay ahayd waxayna ka jawaabaysay su-aasha ah maxaa looga hadlayaa dee qabiilkanay ku gaartay mee qabiilkan kuma gaar aha ee haddii qabiilka daarood ay sheegtaan reer bani caqiil baan ku abtirsanaa de waxaan leenahay war reer bani caqiil haddaa ku abtirsataan dee noo keena daliilkii qul haatuu burhaanakum daliilkiina noo keena dabadeedna markaasaan dee axkaamtii sharciga diintana laydin sheegaya culummadu idin sheegaysa dhahaysa war sadaqada ha cunina war zakada ha cunina waxaa laydin siinaya khumusul akhmaas baa laydin siinaya saasoo kale beesha isaaq haddii ay sheegtaan ahlulbeyt baan nahay ama ashraaftu ay sheegato ahlulbeyt baan nahay de wayna burhaankii iyo daliilkii ay noo keenaan wayna caddayntii u keenaan culimmada islaamka dabadeedna culimmada islaamku markay arkaan ay dhahaan war qabiilkan waa qabiil dee ahlulbeyda marka wayna axkaamtii lagu dabaqaa marka cid gaara oo loo jeedaa ma jirto ama beel gaara oo anisha saarayna ma jirto waxaanu la hadlaynaa wixii sheegta qabiilka ahlulbeytka ama ahlulbeyt ama xasan iyo xuseen isku sheegtow daliil baan kaa rabnaa caddayn baan kaa rabnaa xujan kaa rabnaa haddii kalena de waa beenna haddaad sheegtana wanigii kuu soo qaaday xadiidkii rasuulka sala allahu calayh wasalam qofku qabiil aan ahayn hadduu sheegto ha diyaarsada buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam booskiisii naarta ha diyaarsada naarta meeshuu ka gelay waayahay haddaba intaasi aroor hore iska ahayd ama waxyaalihii ama asbaabtii nagu kaliftay inaan barnaamijkan ka hadalno ayaan ka warramayna un iminka duluucda ayaan u gedigeli doonaa insha allah barnaamijkeena duluucda barnaamijkeena waxa weeyaan kitaabka uu qoray ninka la yidhahdo cabdirasaaq caqli waa nin wadaada nin odaya oo reer hargeysa ayaan filaya inuu yahay cabdirasaaq caqli baa la yidhahda kitaabka uu qoray wuxuu bixiyey taariikhda sheekh isxaaq waxaa kaloo jira kitaab kale oo uu qoray sheikha ama wadaadka la yidhahdo maxamed oo isagana uu ugu magac daray magaciisii imika si fiican ma xasuusto laakiin inuu ahaa baan filayaa dheemantii lagu macsuumay maydh oo isaguna ka warramaya taarikhda sheekh isxaaq labadaa wadaad oo dabcan haddaad youtube-kaba ku qortaan taarikhda sheekh isxaaq haddaad aragtaan way is ag fadhiyaan labada sheikh marka labadaa sheekh waxay sheegeen inuu qabiilka sheekh isxaaq ku abtirsada in sheikhaas taarikhdiisi ay qoreen ama ninkaa maaragtay wadaadkan ilaah u naxariiste in ay qoreen taarikhdiisi haddaba kitaabka waan akhriyey labada kitaabba waan akhriyey markii aan akhriyey subxaan allah waxa iga soo horbaxay waxyaalo cajaayib oo la yaab leh marka waxyaalihii la yaabka lahaa ee cajaayibka ahaa ee iga soo horbaxay si aad adiguna u aragtid oo waxaan aan ka warramaya inay wax jira ay tahay ama inaan been kuu sheegayo ama inaan brobaganda aan akrinay aad u kala socdid waxaan kugula talinaya walaalkayga muslimka walaashayda muslimadda inaad kitaabka akhrido haddaad rabto xataa inaad aniga ii jawaabto ama aad i radido marka hore walaalkayga muslimka ahow bal marka hore horta kitaabka akhri kitaabka taariikhda sheekh isxaaq soo akhri ee uu qoray wadaadka la yidhahdo cabdirasaaq caqli markaad soo akhrido kadib ayaad fahmaysaa waxaan aan iminka ka warrami doono ama su-aalaha aan keeni doono ama waxyaalaha aan radin doono markaasaad fahmaysaa ka hor intaanaad kitaabka akhriyin ma fahmi doontid mana garan doontid ujeedada doonaysidna markaa haddaanad akhriyin dee kitaabkaanaad diyaar u ahayn inaad kitaabka akridin ujeedadaada iyo ajendahaaga aad doontid waad qaadan kartaa yani qofku waa inuu noqdaa maxay qof subxaan allah daacada marka waa inaad kitaabka soo akhrisataa markaad kitaabka soo akhrisato isubkay barbardhig waxaan anigu imka idinka warrami doono iyo waxaad kitaabka ku aragtaan baad ogaan doontaan maxaa saxa ma anaa saxa ma isagaa saxa deetana wixii xaqa unbaad raaci doontaan kitaabka markaa dee dabcan ma wada akrin karayno
laakiin sida uu maaragtay kitaabka ku qoran ayaan idiin soo koobayaa. markaan idiin soo koobana dhowr su-aalood baan markaa wadaadkii kitaabka qorayna aan weydiinayaa, caqligeennana aan weydiin doonaa insha allah. waayahay taariikhda markaa sheekh isxaaq halkay ka bilaabmaysa? waxay ka bilaabmaysaa abtirsiintiisa. marka abtirsiintiisii markii sheekh isxaaq inta badan qabaa'ilka ku abtirsada sheekh isxaaq marka la gaadho abtirsiintiisa lama aqoonin, oo sheekh axmed ama binu axmed baa ku go-i jira, halkaasa ku dhammaan jirta. ceebna maaha hadda hadday halkaa ku dhammaato, waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu abtirsado ama reer qurayshad ay abtirsadaan, abtirsiintoodu markay gaadhaan cadnaan, macad binu cadnaan markay halkaa marayaan oo ah awowgii 11aad ee nebiga, may aqoonin reer quraysheed cadnaan waxa ka sareeya ilaa iyo ismaaciil binu ibraahim inta gaadhaysa, inta odayayta ma 40 ba ama 100 ba lama aqoon. marka nebigu wuxuu dhihi jiray kadaba nasaabuun, kuwa abtiriyaa been bay sheegeen. markay cadnaan ay dhaafiyaan ilaa ismaaciil ay dhahaan waan u abtirinaynaa, beenaalayaal weeyaan buu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka ceeb ma aha oo way isqarin kartaa waxaan, iyo dee haddii sheekh isxaaq uu kugu go-o oo aad garan weydid inta ka saraysa dee la yaab male. nebigaba isagoo nebigu noolo qurayshi ay joogto ayaa cadnaan iyo ilaa inta ismaaciil u dhaxaysa la garan waayey oo uu yidhi nebigu waa beenaalayaal. marka dhib ma laha haddii halkaas ay ku goodo. anigu kule de intii aan aqaanay ama aqoontayda intaasunba halkaasay ku goyi jirtay, laakiin wadaadkaas cabdirasaaq caqli ilaahay ha dhowre wuxuu qoray maaragtay abtirsiintii. haddaba abtirsiintii markii uu qoray, abtirsiintii baan akrinay. maxaa ku jira? waxaa ku jirta 12 imaam ee shiicada raafidada itnaa cashariyada ah. 12 imaam ee raafidada itnaa cashariyadu ay lahayd. marka 12 imaam dee waxay ahayd 12 imaam oo a'imada iyo imaamyada waaweyn ee culamada islaamka kamid. iyagu ceeb iyo waxay leeyihiin ma jirto, bale waa imaamyada ugu waaweyn diinta islaamka. ee shiicada ayaa ku abtirsata. marka shiicadu siday ku abtirsato ninka la ihahdo imaamka 11aad markay yimaadaan oo ah xasan alcaskari. xasan alcaskari waa imaamkii 11aad. waxay shiicadu dhahdaan wiil buu dhalay, wiilkaa uu dhalayna wuu qarsoomay oo sirdaab buu galay, meel buu galay oo uu maaragtay ku dhuumanayay, ilaa iyo haddana uu dhuumanayaa oo 1200 sanadood ku dhowaad ayuu dhuumanayay ninkaas. haddaba waxaa cajiib oo la yaab leh, abtirsiintii uu wadaadkii uu soo qoray wuxuu ku af xidhay oo wuxuu yidhi ninkii dhuumanayay baa maaragtay ayaa loogu abtiriyey. ninkii dhuumanayay maxamed ay u yaqaaneen oo ama ay iyaga agtooda ay u yaqaanaan mahdiga ayaa caruura dhalay. caruurtii uu dhalay ayaa sii dhashay caruuro kale. markaa sheekh isxaaq halkaasu ku abtirsadaan. aragtida shiicadu waa maxay? wiil baa xasan alcaskari u dhalay. aragtida dadka muslimiinta ahlu sunnana waa maxay? xasan alcaskari ilaahay ilmaba muusin, qofba muu dhalin. ilmahan ay sheegteen shiicadu ay dhaheen ilmuu dhalay, lam yakhluqhu allah, ilaahay muu abuurin. atasmacuun? ilaahay muu abuuray xasan alcaskari, wax ilma ah oo u dhalay ma jiro. wax la dhahda maxamed taqi ama mahdi uu dhalay maba jiraba, totally wuxuu dhalay ma jiro. kutubta shiicadana way ku taallaa. kutubta shiicada kitaabkooda ugu sarreeya usuululkaafiga ee uu qoray kuleni waxaa ku taalla markii xasan alcaskari uu dhintay waxaa dhaxlay walaalkii iyo hooyadii baa dhaxshay. marka aduu caqliga qiyaas, walaalkii iyo hooyadii baa dhaxlay. siduu walaalkii u dhaxlay hadduu caruur leeyahay xasan alcaskari? waayo caruurtu way xijaabtaa dee walaalka, haddaad cilmiga dhaxalka baratay. caruur haddaad leedahay dee walaalkaa maku dhaxli karo. marka kutubtoodii waxaa ku taalla shiicada in xasan alcaskarina wax caruur aanu lahayn, oo ciddii dhaxashay xasan alcaskarina walaalkii jacfar uu ahaa. subxaan allah. marka xasan alcaskari ahlu sunnuhu wuxuu qaba wax caruura muu lahayn. shiicadana kutubtooda qaar ka mida waxaa ku taalla inuu caruur baanu lahayn oo uu walaalkii jacfar uu dhaxlay. hadda xaggee laga keenay wiilkan yaree mahdigee 1000 sannadood 1200 sano? waa way alifeen si aanay imaamnimadani aanay u istaagin ayay alifeen. nimankii alifena 4 beenaalayaal ay ahayno waa la yaqaanaa. 4 nin oo baa dhihi jirtay wiilkii yaraa isagoo 5 jira buu meel galay, annagaa la kulanna waraaqa ka soo qorqoro oo dadka lacagta khumusta kaga urursan jiray, oo lacagta iyo maaragtay lacagta nadarka iyo kafaara gudka iyo waxaa ka urursan jira ku xamaalan jiray. markuu 80 sannadood ay kasoo wareegtayna ay ogaadeen inay arrintii soo afxidhmaysana mar qura waxay dhaheen ninkii wuxuu galay alghiibata alkubraa, dhuumashadii weyneyd ayuu iminka galay. mana garanaya intay soo dhammaanaysa dhuumashada weyne.
war dhuumashada weyni maxay ahayd 80 jir buu ahaaye 80 sannadood bay lacagta ka guri jireen oo ay xoolaha kaga guri jireen dadka shiicada ah nacuudu billah calaa kulli xaal taasi waa afkaartii shiicada oo waxa weeyaan iyagu waxay aaminsan yihiin in wiilkaasi uu weli nool yahay uuna da-diisuna ay tahay 1200 oo sannadood ku dhowaad iminka ay tahay uuna ku jiro halkaas sirdaabka oo uu ku dhuumanayo uuna aakhiru zamaanka usoo baxay haddaba waxaa cajiiba oo la yaab leh ninkii maxamed mahdiga ahaa ee aan ku ogin inuu dhuumanayo ayuu wuxuuna yidhi carruur buu dhalay oo waxa weeyaan abtirsiintii sheekh isxaaq baa sii martay oo wuxuu ku leeyahay abtirsiintii ninka markaa maxamed la dhahday ama mahdiga wiilkaa yaree dhuuntay ayaa carruura sii dhalay markaa dee taa ma yeelino waayo waxay u baahan tahay caddayn iyo daliil bay u baahan tahay ahlu sunnu wuxuu qabaa inaan xasan alcaskari ilaahay wax cobadaba aanu siinin oo aanu ilmo la dhahdo maxamed la dhahda aanu lam yakhluqhu llah ilaahay aanu abuurin shiicaduna waxay qabtaa in wiil yar uu meesha u galay sidoo kalena shiicadu waxay qabtaa inaanu wax ubada dhalin shiicadii laftigeedii baa waxay ku leedahay ninkan wuu dhunto wa carruurar ma leh haddii uu carruur dhalana carruurtaas way la dhuumanaysaa meelun bay la joogtaa oo iyagu marka la weydiiye waxay dhahan waxna waa ahlulgayb waa qaybka weyn adma qayb badna weydiinaysa markaa shiicadii baa waxay tihi carruur ma leh sunniyiintina waxay dhaheen ilaahay mabuu abuurinba xaggaad markaa u marisay abtirsiintiisi xaggaad u marisay maaragtay xasan alcaskari cajiib wey waa su-aal dee maaragta aan u baahanahay in layga jawaabo arrinta labaad ee maaragtay taariikhda maaragtay gunteeda hoose aan usoo dhaadhacno wuxuu dhahay sheekh isxaaq wuxuu ku dhashay magaalo dhahda samara oo ku taalla ciraaq caasimadii hore ee dowladda cabaasiyiinta sanadku markuu 400 iyo hijriyadii ma xasuusta iminka inta 488 hijriyada ayaan malanaya inay ahayd xilligaas u dhashay dabadeedna dowladda cabaasiyiinta ayaa cadaadis ku samaysay uu ka qaxay magaaladii ciraaq oo iskaga tegeen waxay tageen magaalada madiina awowgii buu markaa la qaxay awowgii baa markii dambena akhirkii magaalada madiina ku dhintay haddana reerkii baa sii kala qaxay isaga iyo aabihii yaman ayay tageen markay yaman ay tageen haddana aabihii baa dhintay isaga iyo walaal yaro uu leeyahayba waxay aadeen magaalo la dhahdo al-sharaf isagoo da-diisu ay ahayd 22 sano jir magaalada markii uu tegay wuxuu noqday inanlayaalku waa maxay inanlayaalku waxa weeyaan waa ninku marka uu gabadh intuu guursay gabadhi uu reerkoodii ula dego oo uu xididkiisa ula degan yahay baa la dhahdaa waa inanlayaal markaas wuxuu noqda maxay inanlayaal yacni inantii uu qabay buu la yaalla marka ninkii boqorka ahaa ee meesha joogay ayaa gabadh u guuriyay sida kitaabka ku taalla u fiirso sida kitaabka ku taalla mar walba waan raacinayna leanno kitaabka u noqo baan kudhi kitaabka mar walba wayna dib ugu noqotaa insha allah oo aad akhridan sida kitaabka ku taalla marka wuxuu ka guursaday maxay gabadh buu ka guursaday uu boqorkii halkaa joogay oo la dhihi jiray daracaan suldaan daracaan ayuu gabadhii ka guursaday gabadhaas ayuu la noolaa suldaankaasa soo dhaweeyey yihi ninkani waa nin saade ahlu saade ah oo sharaaf oo de nin ku abtirsada xasan iyo xuseyna dabadeed ninkaasi aad buu wanaajiyey muddo markii halkii ay ku noolaayeen oo gabadhiina ay u dhashay 2 carruura oo labadii carruurana midna uu bixiyey daracaan midna uu bixiyey shariif ayaan waxaa dhintay suldaankii magaalada sharaf ka talinayay loo yaqaanay suldaan darcaan xuseen darcaan ayaa dhintay deetana wiil adeeru yahay ayaa qabsaday wiilkii adeerka u ahaaba markaa sida uu kitaabka ku taalla sida kitaabka ku taalla la colowtamay sheekh isxaaq dabadeedna xoolihii carruurtiisa yaryari ay haysatay ay lahaydna ka qaaday dabadeedna isagana jeelka u taxaabay marka waxa u hiiliyey buu sida kitaabka ku taal waxa u hiiliyey amiir la dhaho magaciisa nasr waxa la dhaha nasr bin ziyaad sida kitaabka ku taal nasr bin ziyaad ayaa yidhi sideebad ninkan shariifka ah ee saadada ah ee xasan iyo xuseen ku abtirsada sideebad ugu xadgudubtaa ninkaasaa u hiiliyey aduu aakhirkii kitaabka ayay ku taallay kitaabkati akhrisan doontaaye sheekh isxaaq wuxuu ka baxay jeelkii waa la fasaxay gabadhii uu qabay buu yimi wuxuu ku yidhi gabadh yahay magaaladan waa laygu dhibaye waa taa jeelka laygeeye ee iraac adig iyo carruurtaadu gabadhii baa diiddo waxay tihi daanu magaaladanaan ku dhashay ninka meesha haystana dee eedaaban u ahayba way diiday aduu ninkii odaygii sheekh isxaaq ahaa wuu iskaga togo magaalo la dhahdo jawf ayuu tegay amiirkii u hiilinayana weerar buu kusoo qaaday ninkii meesha qabsaday iyo suldaankii sheekh isxaaq xidhay waanu dilay adugu akhirkii sheeko dheer weeyaan kitaabkata akhrisan doontaa wuu dilay waxa meeshii qabsaday amiirkii ninkii odaygii sheekh isxaaqna wuxuu tegay maxay
wuxuu tegey magaalada la dhahay jawf markuu tegayna boqorkii joogay baa soo dhaweeyey oo ku yihi ma adigoo saadada ah oo sayida oo sharaaf ah ayaa markaa waxa weeyaan lagu soo eriyey annagaa kugu bedelayna gabadhii ku diidayna gabadh ka wanaagsan dhulkii lagu diidayna dhul ka wanaagsan xoolihii lagaa qaatayna xoolo ka fiican qasri weyn ayaaba loo dhisayba gabadhiina waa loo guuriyeyba inanlayaal kale ayuu noqday oo halkaasaa maaragtay xididkiisu ay ku ilaalinayeen marka arrinta cajaa'ibka la yaab kale waxaa ka mid a ninkii u hiiliyey sheekh isxaaq dartii dagaalka u galay ee magaalada maaragtay intuu magaalo kale kasoo duulay ninkii xidhay dilay oo maaragtay magaaladiiba qabsaday ayaa sheekh isxaaq warqad usoo qoriya dhambaalo sheekh isxaaqow sayid baa tee noo kaalay war yaa ilaahay yaqaan shiikhii baa diiday wuxu uhi anu weydiin ma imanayo wadaadkiibaa wuxu uhi si kale kuma imanayee waa inaynu wadaadka aynu labada wiile uu dhalay darcaan iyo shariif waa inaynu ku darnaa wafdi dhan wafdigaasi tiradoodu intay ahayd 250 qof sida ku taalla kitaabka 250 qof oo uu hogaaminayo labadii wiile uu sheekh isxaaq dhalay ayaa magaaladii jawf ugu yimi waayahay deetana waxay ku dhaheen noo kaalay aaba maxaad u diidaysaa magaaladii ninkii ku eryadee ku xidhay waa la dilay iminkana nin wanaagsan oo ninkii ku heliyey baa haysta maxaad noogu diidaysaa haddaba aniga waxa iga nixisay jawaabtii uu sheikhu siiyey caruurtiisi iyo wafdigii 250 qof ahaa jawaabtii uu ugu jawaabay sida ku taalla kitaabka ayaa aniga iga nixisay oo argagaxi gelisay muxuu yidhi ilaahay baa meeshii laygu bahdilay iigu bedelay meel ka khayr badan ilaahay baa iigu bedelay ooridu waa xaaskii i diiday mid ka wanaagsan ilaahay baa iigu bedelay xididkii i xumeeyena xidid ka wanaagsan inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun aniga arrintaasi waxay ku noqotay qalbi jab waayo dee wafdi ku yimi yaad la hadlaysa carruurtaadii baa hogaaminaysa waa wiilashiisiibuu la hadlaya oo uu ku leeyahay hooyadiin mid ka wanaagsan bu ilaahay iigu bedelay beledkiinina beled ka wanaagsan baa laygu bedelay xididkii iyo qabiilkii dhammaanye wanaajiyey inanlayaal buu ahaa isagoo faramaran buu meesha yimi gabadh baad la taallay marka hore xoolamaad lahayn xoola iyagaa ku siiyey xididkii ku wanaajiyena wuxuu ugu jawaabay anigu xididkii xumeeyey xidid maaragtay ka wanaagsan baa laygu bedelay anigu marka jawaabtaa qalbi jab bay gu noqotay dee ma garan karayo wadaadka kitaabka qoray ee cabdirasaaq caqli jawaabtaa meeshuu ka keenay iyo meeshuu kasoo xigtay isagu baa caddayn doona run ahaantii sidoo kalena waxaan leenahay dee tan maaha faan loogu faaniyo ama maaragtay sharaf sheekh isxaaq la siinaye aniga agteeda de waa ceebeyn la ceebanaya sheekh isxaaq waayahay waxaa dhacday markaa sheekh isxaaq magaaladii jawf wuu diiday wafdigii magaaladii jawf 22 sannadood buu joogay xaaskiisiina muu furin sidaasuna kaga tegey way diiday wuu ka tegey uu ka dhaqaaji carruurtiisina dib ugumuu noqonin waanan arki doonaa markaan taarikhdiisa soo bandhigno kitaabka markaad akhridana waad arki doonta carruurtiisii dib ugumuu noqon magaalada jawf buu joogay 22 sannadood deetana 22 sano kadib gabadhii kale u guursaday waxa u dhashay wiil iyo gabadh wiil la dhahdo axmed iyo gabadh ba u dhashay intaas kadibna wuxuu tegay xajka isagoo da-diisu ay tahay 53 sano jir xajka markuu tegay uu soo gutay waajibaadkii xajka adeerkii oo la dhahdo yuusuf ayuu markaa waxa weeyaan uu la kulmay adeerkii baa gabadh siiyey gabadh xuuralcayn oo qurux badan gabadhii buu guursaday xaaskiisii maaragtay jawf joogtay baa maqashay oo way hinaastay gabadhaasina iyaduna sida ku taalla kitaabka gabadhii cay iyo waxbay soo qorqortay aduu gabadhaana dib uguma noqonin wuxuu la joogay adeerkiina maaragtay xanuun baa dilay ama cudur baa dilay sida ku taalla kitaabka aakhirkii gabadhiina way ka dhimatay oo awr bay ka dhacday iyada iyo gabadh yaroo kale ay dhashay musiiba markaan odaygii sheekh isxaaq ahaa la soo daristay markay da-diisu 60 ahayd ayuu bilaabay safar marka u fiirsa markaa waxaan isweydiinaynaa carruurtiisii xaaskiisii koowaad ee joogtay magaalada al-sharaf kumuu noqon carruurtiisii darcaan iyo shariif muu soo salaamin kumanuu noqonin qoyskii kale ee jawf ee wanaajiyey ee weynanlayaalka ku ahaana kumuu noqonin dib u dambaysa kumuu noqon subxaanaka rabbi markaasu wuxuu leeyahay kitaabku wuxuu leeyahay dhibaataa loo geystay war ma nin baa carruurtiisii ka maqan
waa mudayac weeyaan dee qofkaasi anu waa qof mudayacada, waa qof aan reerkiisii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii ka adkayn weeyaan. marka anigu uma arka dee sharaf uma arka, waa ceebayn la ceebanayo. arrintana waxaan la yaabanahay maxaa culimmada waaweyn uga hadli weyday, maxay dadka maaragtay caqliga leh ama aqoon-yahanka uga hadli waayeen. nas'al allah asalaamata walcaafiya. waayahay markuu 60 ahaa ayuu safar buu galay, wiil yar baa kasoo horbaxay oo la dhahday saa'imu dahri. wiil yar, inan yar, weliba haddaad rabtaan inaad si fiican usii fiirsataan kitaabka maxamed cabdi uu qoray magaciisa la dhahdo dheemantii lagu macsuumay maydh, haddaad akriya inan yar buu qoray. isna sheikhan kitaabka qoray cabdirasaaqna inan yar buu yidhi. inan yar de waa ilmo yaro aan qaan gaadhin weeyaan, ayaa markaa kasoo horbaxay oo la dhahdo saa'imu dahri, ninkii soomi jiray sanadka o dhan. wiilkaa yari wuxuu uga warramay markaa sheekh isxaaq mustaqbalkiisa. aduu qiyaas, qof baa mustaqbalkaaga kaaga warrami doona. iminka anigu haddaan adigu ku yimaado aan kugu dhaho iska dhaaf wixii kugu dhacee, mustaqbalkaaga kaaga warramaya, bal ka waran may aamini lahayd? oo maqaybka xagaad ka ogaatay mustaqbalkayga xagaad ka ogaatay? ile nebiyada ilaahay iyo rusushiiyo malaa'igtu mustaqbalka maba oge, adoo xagaad ka keentay mustaqbalkayga? haddaba aan dhegaysana cajaa'ibkii la yaabka. wiilkii yaraa oo la dhaha saa'imu dahri ayaa wuxuu ku yidhi sayid isxaaqow waxa weeyaan waxaad tegaysaa magaalo la dhahda saylac, muddaad joogaysaa. waxaad tegaysaa magaalo la dhahda herar, muddaad joogaysaa. aakhirkina waxaad tegaysaa magaalada maydh, halkaasaad ku tafiirmaysaa, carruuro badanaad ku dhalaysaa. waayahay markaasuu hi halkaasaad ku dhalaysaa, ha arrintaasaad samaynaysaa. intaa ka horeysa intaanad maydh gaadhinna gabadh ha u dhowaanin. marka wadaadkii 60 jirka ah sida kitaabka ku taalana dee sheekh isxaaq wuxuu yidhi wuxuu dadka beri jiray cilmiga diinta islaamka, shareecadu aada u yaqaano, dadka beri jiray. caalimkii weynaa ilmo yar ayaa wuxuu ku yidhi mustaqbalkaaga kaga warrami, mustaqbalkiisana uga warrami. waanu rumaystay, kasii darana wuu rumaystay. deetana wadaadkii wuu dhaqaaqay oo xagga iyo wuxuu aaday maxay siduu u tegi lahaa saylac. nasal allah asalaamata walcaafiya. magaalo la dhahda mukha ayuu tegey, doonni buu ka raacay. doonidii markii uu fuulay lacagtii buu sidhi bixi. ninkii naakuudaha ahaa baa yidhi miyaanad sayid ahayn? markaasuu yihi ha, omaad shariif ahayn nin maaragtay ku habtay sida aalulbeytka xasan iyo xusein, waxba lacag lagama qaadayn. marka lacagta maxaa layga daayey? sababtoo ah waxaan ahay aalulbeyt xasan iyo xusein. nasal allah asalaama, nasal allah asalaama. ilaahay baan weydiisanay nabadgelye iyo caafimaad. waayahay wuxuu soo socdaba wuxuu yimi magaalada saylac. markuu saylac u yimi saylac markii uu yimi naakuudihii baa maaragtay kaxeeyey iyo gurigiisa geeyey. dabadeedna nin la idhahdo al-shaadili oo magaaladii mukha uu kula kulmay sheekh isxaaq baa warqad soo qoray oo ku ballamiyey imaamka masaajidka magaalada saylac, oo la hadlo ku yihi shiikhaasaa idiin imanaya oo shiikh weyn oo ahlu saada ahoo sharaf laho maaragtay sidaasi sidaas ahe, soo dhaweeya masaajidka keena maaragtay dee shiikha maaragtay maqaamkiisa muujiya. waaye waxa dhacday wadaadkii haddaba iyo 2 nin oo kale la socda sheekh isxaaq waxaa kaxeeyey oo marti qaaday naakuudihii. 17 maalmood ayuu gurigaa joogay. maalintii dambe u diyaargarow adigu surprise-ki iyo cajaa'ibkii la yaabka soo socda. maalintii dambe imaamkii masaajidka ee warqadda loo soo diray layidhi ninkaasaa ku imanaya dee ilaali ee ilaaway ayaa riyo arkay oo riyo ku riyooday. riyadii wuxuu ku arkay nin canaananaya oo qurdubi la dhaho oo leh waryaa ma sawkan sheekh isxaaq guriga naakuudaha jooga, maxaad u soo dhowaan weydays? waa kii masaajidka laba toddobaad ku tukadee, waa kii masaajidka 2 toddobaad ku tukadaye maxaa u soo dhowaan weydeen? subxaan allah. dabadeedna ninkii waa la canaantay oo yaabo muu joogaa magaalada ha wuu joogaa. ninkii masaajidka imaamka ka ahaa masaajidka saylac ayaa subaxii soo kacay oo magaaladii odayaashii joogo dhan buu isugu yeedhay oo odayaashii buu sheegay wuxuuhi xalay dhan baa la canaaninayo leelahaa sheekh isxaaq baa halkan joogay maxaad usoo dhowaan weyday? waxa cajaayib oo la yaab le odayaashiina waxay dheen annaguna riyadaad aragtay mid lamidaan aragnay. annagaba xalay waanana canaaninayay. subxaan allah. nasal allah asalaama, nasal allah asalaama. waayaha haddaba bal inoo geeya wadaadkii baa loo tegey sheekh isxaaq ahaa. gurigii baa lagu garaacay. waxaa la yidhi guri baa lagu diyaariyay. adigu way soo dhaweeyeen. sheekadu way dheertahay laakiin waynaad akhrisataa kitaabka. kitaabka waa inaad akhrisataa.
waxaa dhacday wadaadkii guri baa la keenay waa la weyneeyey masaajidkii baa lagu wareejiyey halkaasuu maaragtay muddo uu qur-aanka ama shareecada diinta ka bariyay dadka aduu muddo markuu halkaa joogay dhowr iyo 10 sanadooda ayuu haddana waxa weeyaan ninkii magaalada herar wadaadkii ama wasiirkii awqaafta ama diintii awqaafta ninkii ugu sarreeyay aduu diinta ayaa geeriyoonayay ninkaasaa yidhi ninkaas sayidka ahee aalulbeytka ahee sheekh isxaaq la ydhahdo laygu yeedhay ninkaasaan xilka ku wareejinayaa aduu sheekadu way dheer tahay ninkaasaa u yeedhay sidaasuu herar ku tegey sidaas ayuu mansabkii ama booskii ugu weynaa magaalada herar iyo intii hoos imanaysay oo dhan uu madax uga noqday kadib maxaa dhacay waxaa dhacday arrimo cajiiba halkaasuu dadka diinta ka bari jiray kadib wuxuu dhahay sida ku taalla kitaabka uu qoray wadaadka cabdirasaaq wuxuu yidhi markaas wuxuu bilaabay shiikhii inuu dhuunto oo uu dadka iska qariyo oo aanu sheeganin inuu sayid yahay ama ashraafu yahay markaas su-aasha isweydiintale waxay muxuu isu qarinayay ila markuu saylac joogay imaanshihii ku yimi saylac waa la yaqaano waa tilalaha waa sayid waa saado markii uu ninkan herar joogayna uu ku wareejinaya xilka mansabka diineed ee ugu weyn dee wuu garanayo waa kii laha waa sayid waa saado weeyaan oo ninkaasan ku wareejinay ninkaasunbaa u qalma marka muxuu u bilaabay dhuumashada ta labaad ma dowladda cabaasiyiinta joogta haddii aan idhaahno markuu ciraaq uu ku dhashay dowladda cabaasiyiinta cadaadis ku haysay ayadoo aynu ognahay xilligaa 488 hijriyeeda markii la yidhi maaragtay markuu soo hijrooday ama uu soo hayaamay sheekh isxaaq ama xilligu dhashay dowladda dee cabaasiyiintu dowlad tamar yar bay ahayd intaasoo dowladadoo shiica yaryar baa ka dhalatay oo awooda yeelatay dowlad tamar yar bay ahayd sanadku markuu 458 dowlad tamar yar bay dowlad awood u leh inay cid eryataba may ahayn daciif bay ahayd calaa kulli xaal hawshu ha iska socota insha allah herar wuxuu joogay dhowr iyo 20 sannadood maalintii dambe wuxuu u baxay maxay xajku dib ugu noqday u fiirso inta uu saylac u joogay iyo herar uu joogay oo 40 sano ku dhowaada reerkiisii lamuu kulmin lamana u hadlin warna uma hayo iyaguna war uma hayaan wuxuun bay maqleen inuu dhulka xabashida uu tegay warna uma hayo iyo isna war uma hayo nasal allaha salaamata walcaafiya nasal allaha salaamata walcaafiya nin aan xabsi ku xidhnayn oo aan jeel ku xidhnayn oo magaalada joogay oo xamaalanayay oo dadka waxbarayay carruurtiisii uu dhalay iyo xaaskiisii aan muddo 40 sannadood ku dhowaada aan war u haynin nasal allaha salaamata walcaafiya nasal allaha salaama walcaafiya wuxuu ku laabtay xajka ayuu kula kulmay wiilashiisi iyo odayaal noqday oo magaaladii ay deganaayeen iyo dhulkii yaman ayagu amiirra ka ah oo madax ka ah waayahay carruurtiisii oo darcaan iyo shariif ah adoo odayaal waaweyne ayaa ku dhahay aabe dee intaasu sannadood baad naga maqnayd warna kuumaanaan haynin dee maanta haddii ilaahay iskeen tusay kaalayo noo kaalay annagaaba meeshii aad hadad ka cabsanaysayba dee annagaaba meesha amiirra ka ah maanta annagaaba madax iyo ka ahbe wuu diiday markaa odaygii he wuu diiday de ma garana ma wiilkii yaraaye yidhi saylac ilaa herar ilaa maydhbo ayaa ilmihii yara nasal allah salaam calaa kulli xaal odaygii maaragtay sheekh isxaaq ahaa xajkii buu kasoo laabtay waxaana dadkii la socday ee herar kasoo raacay ay ogaadeen ila ninkani waa kii dhuumanaya intaas sida kitaabka ku taalle waxay ogaadeen inuu sheekh isxaaq yahay sayid iyo shariif iyo inuu yahay maxay nin saade ahood ku abtirsida aalulbeytka xasan iyo xusein nasal allah asalaama kadibna il kale ayaa lagu eegay awoodo kale uu yeeshay ninkii subxaan allah aduu qiimihii la qiiman jiray baa isbedelay aakhirkii waxaa xaasiday markii uu magaalada herar kusoo noqday waxaa xaasiday gabadh maaragtay ninkii boqorka ka ah magaalada herar uu qabay iyo ninkii boqorka ahaa baa yidhi ninkani malaa dee awoodda iyo baawarka buu kaa qaadaya iminka mar hadduuba noqday saadadii iyo dee ahlulbeytkiiba haddaba arrinta ugu yaabka badan ugu cajiibsan waxa weeyaan mucjisooyinkii iyo karaamooyinkii ka dhacay sheekh isxaaq markuu herar joogay waxaa dhacday magaalada herar gidaar baa ku soo weegaaraysnaa magaalada markaa meel bulaacado biyuhu ay ka baxaan waxaa kasoo geli jiray bahallada libaaxa iyo xaaska wax cuna xoolaha cuna iyo dadka cunun baa kasoo geli jira oo bahallo ugaadhatay iyo habar dugaaga
marka meeshaa kasoo galaan dadkii baa ka cawday. ninkii boqorkii harar joogay baa looga cawdo layidhi dee bahallaa meeshaa kasoo galeen waxba uu ka qaban kari waayey dowladdii harar joogtay. sheekh isxaaq baa loo cawdo loo yidhi shiikhow dee adaa malaa sheikh karaamiya ahlulbeyt ahel ku abtirsida ehelka beytka nebige dee arrintaasaan ka cabanaynaa. waxaan ka cabanaynaa dee libaaxyada iyo xoolahaas waxaa naga cunay. wuxuu yihi aniga beligu daaya. habeenkiibuu baxay iyadoo aan cidi arkaynin. wadaadadii kalea yidhi war ninkii dee sheekh isxaaq waa kan baxay odaygiiyo aan ka daba baxna bal wuxuu sameeyo way ka daba baxeen iyagina. halkiibuu ka baxay meeshii bahalkii ugaadho ay kasoo gelaysay ayuu ka baxay. banaanku istaagay gidaarkiiba dhinaca kale banaanka dibaddu istaagay. bahalladiiyo sidaa u qaylinayaa kusoo yaacayba. dabadeedna wadaadadii ka dambeeyey dee isqarinayay ayaa qayliyo yidhi war dee wadaadkii subxaan allah soo kan bahalladii ay cunayaan aan ka ridno. qayladoodii markii ay qayliyeen dadkiibaa magaalada joogay baa soo kaco guryaha dushoodii iyo gidaarkii iyo dushoodii waxbay fulfuuleen. mise sheekh isxaaq baa libaaxii halkaa haya. nasalu llaha asalaama. nasalu llaha asalaama. halkaa cunuhu haya libaaxii ugu weynaa. war maxaa noo kaa keenay subxaan allah. halkan agtiisana waxaa ka baxaya nuur iyo ilays ilaa iyo cirka. waa nuur ilaa iyo dhulka halkan cirku ka baxay ilaa iyo cirku gaadhay halkaasuu hayaa. deetana mise wax halaaliyo wixii ugaadh joogto dhan lugahay dhulka ku wada dhufteen way wada fadhiyaan way wada dhegaysanayaan. waa la yaabay. inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. wadaadkiiba halkii kasoo baxay. waana la arkay inuu maalintaa libaaxyadiina halkaa ku dhegay. subxaanallah nasal allahi salaama. ilaahay ma weydiisanaynaa caafimaad iyo nabadgelyo. waxaa dhacday wadaadkii dee arrintiisii marka karaamada intaa laeg ee ka dhacday dee arrintii khatar bay isu bedeshay soo ma. waa libaaxyadii baaba ka cararaya. libaaxyadiina diba u dambaysa meeshii ugamay soo dhicin. dadkii waxay ogaadeen inuu ninkani yahay nin ahlu karaamo ah oo dee karaamooyin waaweyn ay ka dhacday. haddana maxaa dhacay arrinta kale cajiibka iyo karaamooyinkii wadaadka. waxa dhacday ninkii madaxweynaha ka herar ayaa cadhooday markuu arkay dee maca karaamooyin ka dhacaysi iyo aalulbeytka iyo waxyaalahan faraha badan. wuu cadhoodo sheekh isxaaq wuu xidho jeel buu ku tuuray. markuu jeelkii ku tuuray isaga iyo wadaado kale oo ay habeenkii jeelka ku jiraan bay wadaadadii baa qayliyay dee baroortay. maxaan samaynaa dee minkaana la dilayaa waa kan. waar istajiya ilaahay wuu idinka furayaa meeshani. habeenkii unbuu kacayo sheekhii wuu tukaday. kadibna albaabunbaa furmay. talo albaabkaasi siduu furmay ma garanayna. waa gidaar afarta dhinacba ka xidhan. albaabbaa laakiin ka furmay. albaabkii markuu ka furmay subxaan allah wadaadkii dhinaca kale uga baxay. dadkiina way ka wada baxeen meeshii. deetana way iska dhaqaajiyeenba. markay iska dhaqaajiyeen iska tageen nin ka mida ayaa wuxuu uhi waxaan ilaawey kutubtii aan wax ku qoraye ee aan dib u noqdo balan meeshaan kasoo qaado. wuu soo noqday mise gidaarku wuu malaasan yahayba wuu xidhan yahay. marka yani gidaarkiibuu ka dhex baxay subxaan allah. ma elemonetiba deena ma garanay lakin allahu aclam de allahu aclam. gidaarkiibuu ka dhex baxay de gidaarkaasa ilaahay albaab uga dhigay. nasal allah asalaama. subxaan allah subxaan allah. sidaas ayuu wadaadkii oo imise jira 100 iyo dheeraad ah ayaa waxweye safar dheer buu galay. buuraha jarjar iyo meelahaasuu aaday. nasal allah asalaama. halkaasuu muddo joogay. aakhirkii markii ugu dambeysay xeebta ayuu tegay. rag badan baa la socday raggii jeelka la galay oo dhan. wuxuu yihi wuu kala diray qaar nin walaba meeshaad doonaysid aad. way kala tageen. qole suudaan bay tagtay qole dhulka xabashida qolaba meel bay aaday. dhowr ninunbaa isaga soo raacay. xeebtuu soo maray marka xeebtaasuu soo maray. habeenba meel bay u hooyanayeen. waxna kama cabsanayaan dee libaaxaaba halka ku dhegaaye yaa muxuu ka cabsanaya. meeshaas banaankaasu meeshu doona uu iska seexanayaa. aakhirkii siduu usoo socday magaaladii maydh buu yimi. calaamadiisuna waa maxay burjigiisu iyo markaa waxa weya calaamadda u haysto. magaalada markaad meesha aad tagto warankaagu marka si aa uga taagto hadduu ku dhego oo aad ka fujin kari weydo waa meeshii aad ku tafiirmayso. inankii yaraa uu soo sheegay. inankii yaraayo saa'imu dahri uu soo sheegay. nuunihii yaraa nasal allah asalaamata walcaafiya ee mustaqbalka bani aadamka ka warramayay. ilaahayna qur-aanku inoogu sheegay qof mustaqbalka ka warrami karaa ma jiro. qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah. haybka iyo mustaqbalka waxaa og samada iyo dhulka oo dhan waxaa og ilaahay oo keliya. subxaana caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada. ilaahayna haybka cid uu muujiyo ma jirto.
marka ma garan karana dee wararka noocaasa sida uu wadaadku u rumaystay ama uu usoo qaatay nasal allah asalaam ma garan karana wallahi. wadaadkii wuu yimi magaaladii maydh, warankii buu ka taagay. markuu warankii uu ka taagay, warankii unbaa wadaadadii kale la socday unbaa sili ka fujiya, waa laga fujin kari waayeba. wuxuu waa halkan meeshan ku tafiirmay. halkiibuu maaragtay wadaadkii u fadhiistay uu ku tafiirmay. halkiibuu maaragtay uu degay. dadkii magaalada deganaa oo ahaa dad madmadow oo badow ah oo ari jiro ah ayuu yidhi halkan la degayaa. kuwii baa soo dhaweeyey. haddana inalayaal kaloo noqday oo dee xidid buu la noqday. gabadhii baa la siiyey, gabadh la idhahdo xabuusha kasoo jeeda axmed najaash ku abtirsatay. axmed najaash axmed najaashi waxa weeyaan dee wuxuu leeyahay waa ninkii muslimka ahaa ee dhulka xabashida haysatay, dhulka xabashida markaa madaxda ka ahaa xilligii nebiga. lamana dhihi jirin axmed najaashi, magaciisa asxama ibnulabjar baa la dhihi jiray radia allahu canhu. laakiin ma garanayna dee magaca axmed najaashi meesha uu soomaalida uga yimi. aslan sida kutubta diinta ku taala iyo kitaabka imaamu axmed musnadkiisa magaciisa waxaa la dhihi jiray asxam ibnulabjar. ninkaasay ku abtirsataa. gabadhii uu guursaday caruure u dhashay, haddana gabadh kale u guursaday caruure u dhashay, haddana gabadh kale u guursaday caruure u dhashay. marka aduu sheekhi isagoo da-diisu ay 158 ay tahay. aduu imagine 158 sannadood tolo ummadda nebi maxamed kama tirsaamaya nasal allah asalaam. waayo ummadda nebi maxamed waa maxay da-doodu? waa da-doodu waa 60 ilaa 70, laakiin 158 sannadood anigu ma garan karo sida loo gaadhay. sida ku taala kitaabka. haddaad anigay beeninaysad leedahay waxaan aad akrinaysa waa khuraafaad. war kitaabka akri. anu marka hore waa idin sheegay war kitaabka akriya. markaad kitaabka akridaan waxaanan ka hadlayo inay run tahay iyana xaq tahay iyana baatil tahay baad kala ogaanaysa. markuu wadaadkii halkii uu degay oo carruur ku dhalay, weliba khaasatan qabaa'iladan iminka aynu naqaano ee qabiilka sheekh isxaaq ku abtirsada, sida matalan qabiilka garxajiska oo kale, afartaas garxajis laysku dhaho sida arab iyo ciidagale, habar yoonis iyo kuwaas intaa garxajiska iyo kuwa maaragtay iyagana habar jeclo, tol jeclo iyo allahuma salli calaa sayidina rasuulillah, camraan iyo sambuur iyo mid bahgooniya oo ah habar awal. marka habar awal waxay wuxuu yidhi sida kitaabka ku taalla wuxuu ahaa wiilkaas la dhahdo awal wuxuu ahaa wiilkii ugu yaraa. sida ku taalla maxay kitaabka wiilkii ugu yaraa oo uu sheekh isxaaqna aada u jeclaa oo sidii nebi yuusuf uu u jeclaay oo kale ayuu u jeclaa. nebi yacquub so nebi yuusuf muu jeclayn, saasoo kale ayuu jeclaa. ilmaha yaro ugu yar buu ahaa. maxaa lagu caddaynaya inuu ahaa wiilka ugu yar? de ma garan karin. anu markaan akriyo magacan awal de waa kii koowaad. yani anu markaan magaca dhadhamiyey awal war waa wiilkii koowaad weeyaan. hadduu ilmaba dhalay wiilkii koowaad awal waa wiilkii koowaad. laakiin sida kitaabka ku taalla wiilkii ugu yaraa weeyaan ee ugu jeclaa sheekh isxaaqna oo ugu jeclaa. marka nasal allah asalaama. sheekh isxaaqna ugu jeclaa, dhabarkiisana mahdiga ayaa ku jira. mahdiga sida sheekh maxamed uu kitaabkiisii dheemanka lagu macsuumay maydh dhabarkiisa waxaa ku jirta mahdiga ku jiri doona. mahdiga ku jiri doona. waxaana taariikhdiisa heli doona oo raadin doona nin maaragtay ku abtirsada beesha habar awal. de ma garanayno ma isaga talo isu jeeda de nasal allah asalaam ma garan karayno. aduu kitaabku waxaasu ka akrinaya. haddaba waxaasoo dhan marka uu ka warramayo waxa weeyaan qabiil ka mida qabaa'ilada soomaaliyeed oo qabiil sharaf leh ah oo maaragtay ka mida qabaa'ilada ugu saamaynta iyo raadka badan soomaalida oo dhan, kana mida qabaa'ilada ugu waaweyn. dee waxa weeye markaad nasabkooda ama dhalashadooda aad ka hadlayso dee walaalayaal wax daliille baa la rabaa, wax aqoon le baa la rabaa. weliba khaasatan haddii iminka ay uu sheikhu sheegi lahaa o dhihi lahaa abtirsiinta wuxuu ku abtirsadaa abubakar ama cumar ama cuthmaan, cidimay dareemi lahayn, mana la ogaan lahayn. waayo axkaam ka dhalanaysaa ma jirto hadduu qofku abubakar ku abtirsado ama cali ama uu ku abtirsado cafwan waxaan ujeedaa cuthmaan uu ku abtirsado. wax ka dhalanayaa ma jiraan. sadaqa iyo zake xaaraan ka noqonaysaa ma jirto. khumus iyo wax u gaar noqonaya ma jirto. laakiin markuu yidhi dee aalulbeyt baan ku abtirsay, dee aalulbeytku way tirsan yihin waa la yaqaanaa. kutubo dhan baa laga qoray nasabka aalulbeytka, kutubo dhan baa laga qoray calawiyiinta ku abtirsada cali ibn abi aalib, waa la yaqaanaa. marka de markaad qabiilka aad sheeganayso waa inaad caddayn haysataa weeyaan. waa inaad haysataa wax de caddaynaya. talabaad maadaama axkaam ay ka dhalato ahlulbeytka, ma aha un sheegasho kuma timaado dee anigu ahlulbeyt baan ahay.
anugu hadday imika iska sheegto dhow anu ahlulbeyt baan waxaan ku abtirsada xasan iyo xuseen dee sheegashadeedoo keliya kuma imanayso waayo ahlulbeytka xukun sharciyabaa ka dhasha de xukun sharci marka waa in caalim weyn culimmada waaweyn ee islaamka waa inay dee ku ogaadaan ku soo baadhaan ku dabagalaan war ninkani ma ahlulbeyt ba mise waa been de ma hadday been noqoto de waxa weeye khalaas waa war daciifana lama qaadanayo marka waxaa lagugu waaninaya oo lagugu wacdinaya war ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala ilaa xadiiskii nebiga ayaa ahaa haddaanad qabiil aanad ahayn aad iska sheegato falyatabawaca maqcadahu min annaar booskii uu naarta ka gelayay ha diyaarsado haddaba iminka shiikha waxaan weydiinayaa dhowr su-aalood baan weydiinaya 20 su-aalood baan rabay inaan weydiiyo su-aalahaan weydiinayna maaha radin iminka dabcan waxaan idiin soo bandhigay wixii kitaabka ku yaallay waxaan kaga been abuurtayna ma jirto wixii kitaabka ku yaallun baan idiin soo bandhigay hadal xunna maan dhihin waxaan anigu ahay tuwaylib cilmi arday yar baan ahay oo raba inuu wax barto nasabka inaan barto qabiil ka mid a qabiilka soomaalida sharaf bay aniga ii tahay qof kastoo muslimna sharaf bay u tahay bale waxaan nidhi qofku waa inuu barto waaba anigu waajib ma gaadhsinay laakiin waa muhiim inaad barato qabaa'ilada kale waayo cunsuriyadda iyo qabyaalada waxaa kaa saaraya waa inaad barato qabaa'ilada kale nasabkooda abtirsiintooda waa inaad taqaano waa sharaf waa cilmi waa aqoon aad dadka dheeraanayso marka anigu duwaylib cilmi baan ahay arday baan ahay dee kitaabkii markii aan akhriyey waxaasoo dhan baa iga soo baxay marka su-aalahan baan rabaa inuu dee wadaadku iga soo jawaabo iyo ciddii kale markaa ka jawaabi karaysa dee waa inay kasoo jawaabto marka su-aasheeda koowaad waxa weeyaan dowladda cabaasiyiinta maxaa ku diray maxaa dowladdii cabaasiyiinta ku diray sheekh isxaaq ilaahay u naxariiste maxaa isaga keligii ku diray ama beeshiisa ku diray ayadoo xilligaa dowladda cabaasiyiintu ahayd dowlad tamar yar oo daciifa oo aan awood u lahayn inay maamulato deegaanadooda oo la qabsaday oo faatimiyiintii sheecada ee sheegatay inay tafiirtii faatime kasoo jeedo been ahaan waayna caddayna inay been ahayd iska sheegan jireen ay ka qabsadeen maxay waqooyiga africa o dhan waqooyiga africa ogsoono waa maqrib oo morocco loo yaqaana algeria libiya wadamadaas o dhan ilaa masar ilaa dhulka sham filistiin aagaas o dhan bay qabsatay dowladda shiicada ah xilligaas oy tamar yar tahay maxaa keligood ku diray markaa cabaasiyiinta maxaa ku diray in ay eryadaan ama ay caadhsadaan sheekh isxaaq iyo qabiilkiisa su-aasheeda labaad waxay tahay allahuma salli calaa sayidina muxamed sheekh isxaaq ma inan la yaal unbuu ahaa mar walba ma gabadh unbuu la yaalay mar qura isagoo oo dee magaalo buu leeyahay intuu degay xaas intuu soo guursaday aan xididkiisa ku xidhnayni ma jirtaa markuu al ashraf degay inan la yaal buu ahaa oo gabadh buu ka guursaday ninkii boqorkaa inantii buu la yaalay jawf markuu tegay sidaas oo kale xijaas markuu tegay waa adeerkii u tegay sidaas oo kale maydh markii uu yimina soomaalidii halkaa joogtay gabadha uu ka guursaday unbuu de inan la yaal unbuu ahaa waay su-aashana waxaan rabaa in layga soo jawaabo su-aasha saddexaadaan raba in layga soo jawaabo waxa weeyaan sheekh isxaaq ma sayidnimo iyo ashraafunbuu wax ku raadsanayaa ile maynaan arkin sheekh isxaaq baa wuxuu soo saaray 1000 kun oo arday ah ama wuxuu qoray kutubada waaweyn diinta islaamka iyo saxiix bukhaariga saxiix muslimka iyo tirmidi buu qorayo dee waa caalim weyn oo aqoon-yahan oo laga dambeeyo waa kan laakiin wuxuu wax ku raadsanayaa markaad fiiriso kitaabka oo uu shiikhuna siduu soo bandhigaya aad aragto dee wuxuu leeyahay maxay waa nin aalulbayd oo sayid oo saadada ku abtirsada xasan iyo xuseen ma xasan iyo xuseen ku abtirsiintiisa unbaa wax lagu raadsadaa marka taasina waa su-aasheeda afraad waxay tahay maxaa sheekh isxaaq uu u furi waayey xaasaskiisii oo uga tegay xaasaskiisii muxuu u furi waayey isagoon furin buu ka tegay marka sida ku taalla kitaabka gabadhii markaa al ashraf joogtay manuu furin carruurtiina dib ugumuu noqon gabadhii kale jawf joogtay markii ay in yar hanaastay oo gabadh kale lala guursaday manuu furin dibna ugumuu noqon nasal allah asalaama isagoo carruurtiisi iyo reerkiisina dib isumay arkin markaa dee waa maxay macnaheedu hanaloo macneeye taana waayahay allahuma salli calaa sayidina rasuulillah su-aasha kale aan weydiinayna waxay tahay muxuu carruurtiisii dib ugu noqon waayey su-aasha kale waxay tahay abtirsiinta sheekh isxaaq maxay usii maraysaa xasan alcaskari oo aan ilaahay u badbasinin midhba aan dhalin oo ilaahay uu dabargooyey subxaanahu wa tacaala oo shiicadu ay ka been abuurto ay dhaheen wiil buu dhalay haddiiba fikirka shiicada ay qaadanana fikirka shiicada wiilkii yaraa wuu dhuuntay wax carruurana muu dhalin fikirka shiicadu waa ka wax carruurana muu dhalin hadduu carruuro dhalana meeshuu ku dhalun bay joogaanoo waa qeyb ayay qeybkay ka mid tahay
marka xasan alcaskari maxaad usii marisay oo aan wax midh ubadaba aan lahayn? taasna waa su-aal kale meesha ii taal. su-aasha kale meesha ii taallaa waxay tahay miyayna qariib kula ahayn wadaad iyo qof kastoo muslimow in markii uu saylac uu joogay in wadaadadii masaajidka imaamkii masaajidku uu ku riyooday isagoo lagu canaananayo, oo ay mayna qariib kula ahayn in dhammaan odayaashii magaalada oo dhanna ay wada dhahaan annaguna waxaan ku riyoonay canaantii nalagu canaaninayay wadaadka? taasna anigu su-aal ahaan baan maaragtay dee u weydiinaya. sidoo kale waxaan su-aal ahaan u weydiinayaa markii uu herar uu tegey ee uu isqariyey maxaa ku kalifay inuu wadaadku isqariyo? iyo isagoo markii horeba la ogaa markuu joogay saylac dee wuxuu kusoo galay sayid iyo saadanimaan ahay, maxaa herar ku kalifay inuu isqariyo ama magaciisa uu sheegan waayo? taasna waa mid kale oo a maaragtay ilaahi haddaanayn wax jawaaba u helin. allahuma salli calaa sayidina rasuulillah. su-aashayda kale waxay tahay markii labaad ee uu xajka tegey muxuu ubadkiisii u raaci waayey? ila ubadkiisii oo ku dhowaad 40 sannadood uu ka maqnaa oo amiirra ah oo ka talinaya dalkii yaman, xataa inuu u tago uu soo salaamo carruurtu awowguu yahay ama carruurtii muu yeelin. xajka keliya intuu isku arkeen ayuu haddana dib u soo noqday. markaana dee ma fahmi karaya anigu, ma fahmi karay. taana waxaan u baahanahay in layga jawaabo ama layga jaahil saaro. allahuma salli calaa maxamed. su-aashayda kale waxay tahay haddii uu shiiku ahaa nin caalima sida kitaabkaaga ku qoran, kitaabkaad akhriday ku taala aada soo qortay baan ujeedaa inuu ahaa nin caalimo shareecada islaamka dee meel fiican ka yaqaanay, maxaa wadaadkii haddaba ay cilmiga shareecada diinta islaamka ay biyo dhigtay ku kalifay inuu ilmo yar ama inan yar uu mustaqbalkiisa uga warramo oo uu qeybkii uga warramay ilmo yar oo uu aqoontiisa uu ku garan waayo? aayadda dee suuratuljinni bay ku jirtaa soo ma, caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul. cilmi lqeybka ilaahay unbaa og. haddii ilaahay cid wax uga muujinaya rasuul ama nebi baa ilaahay wax uga muujiya, ilaahay raalli ka yahay. markaas sidee buu ilmo yari ku ogaan karaa cilmiga qeybka iyo mustaqbalka? uu uga warrami karaa, uu ku dhihi karaa meel heblayaad ku dhali doonta, halkaasaad dhali, halkaasaad mari doonta, halkaasaad ku tafiirmi doonta, inta sacaroo dhali doonta? dee ma garan karno. nasal allah asalaam. su-aasha kale waxay tahay maxaa ku qasbay miyayna qariib ahayn ama wax maaragtay dee lala yaabo aan ahayn in qof bani aadam ah uu ugaadh ama maaragtay habar dugaag intuu tago halkaa uu ku dhego libaax oo uu qabsado ku dhaho maxaa noo kaa keenay, diba u dambayso kuguma arki karna magaalada herar, mana soo geli kartid, oo libaaxina ay wada fadhiistaan. dee mucjisadaasi nebiyadana kamay dhicin xitaa. xataa nebiyadii waaweyneed ee rusushii ilaahay uu soo dejiyey dee mucjisada anagu kamaynaan maqan, iyagoo halkaa cunaa ku dhegay libaax. ma garan karan. miyayna qariib ahayn sidoo kale in nin gidaar lagu xidhay uu gidaarkii ka dhex baxo dee albaab looga furo? taana miyayna qariib ahayn? haddaad xitaa tidhahda karaamo ilaahay ka muujinayo wadaadka ayay ahayd, laakiin aniga agtayda ama dad badan waxay la tahay dee qariib ayay la tahay. marka allahuma salli calaa maxamed. sidoo kale kitaabka uu shiiku yidhi waan kasoo xigtay waxaa la ihahdaa alcasjud almanduum fi taarikh walcuyuun. kitaabka markaa uu shiiku sheegay inuu taariikhda uu kasoo xigtay, kitaabku waa makhtuud buu yidhi. maxaa loo daabici waayey? haddii dadkii ku abtirsanaya waxa sida kitaabka ku taalla dadka ku abtirsada sheekh isaxaaq oo carruurtiisi ay ku abtirsato oo ay yeman ay joogaan oo welina kitaabkii iyo diiwaankii ay hayso, maxay intay kitaabka u daabici waayeen oo intay meel isu soo qoraan ay u dhihi waayeen annagu xasan alcaskari oo aan ilmo lahayn ayaan ku abtirsannaa? sababtu waan garanaya anu, waayo hadday dhahaan xasan alcaskari baan ku abtirsannaa, qofka ugu horreeya ee shiici ah baa qoorta jaraya. ka ugu horreeya muslimkana wuxuu ogaan inuu beenaale yahay, waayo xasan alcaskari wax ilmo u dhalay ma jirto. lam yakhluqhu llah, ilaahay muu abuurin wax carruura u dhalay. marka kitaabkuna waa makhtuud. miyayna haddaba wadaadku ahayn arrin aada iyo aada loola yaabo in sida kitaabka aada ku qortay in kitaabku uu ahaa diiwaan, yacni diiwaan wax lagu qorayo intaasoo sannadood oo marba wadaadkii yimaada uu wax ku qorayo? marka kalsooni intee leeg baad ku qabtaa kitaab diiwaan ah oo qofkii yimaadaaba uu wax ku qorayay sanado kala duwan sida adigu ku caddaysay kitaabkaaga oo aada ku caddaysay, sidaad ku rumaysan kartaa? marka taana waa arrin maaragtay dee cajiib ah. kalsooni intee leeg baad kitaabka noocaasa ku qabi kartaa intaas sanado kala duwan iyo dad badan oo kala duwan ay wax ku qorqoreen? markaa ma garan karo. taasna way maaragtay sidee baad 100% ugu kalsoonaan kartaa wixii meesha ku yaalay?
anuu ma dhahayo dee shiikhu been buu sheegay laakiin waxaan sheegayaa dee meeshii aad ka soo qaadatay ama wixii warkan aad ka soo xigatay sidee baad maaragtay ugu kalsoonaan kartaa mar haddii uu ahaa diiwaan sanado kala duwan marba wax lagu darayay marna wax lagu qorayay marba wax lagu qorayay waxaan kaloo maxaad ku caddaynaysaa in uu awal sheekh isxaaq uu ahaa wiilka ugu yar maxaad ku caddayn kartaa inuu ahaa wiilka ugu yar ma garan karin maxaa lagu caddayn karayaa in gabadh la dhada xabuusha oo xabashiyada axmed najaashi u dhalay in uu sheikhu uu guursaday oo beelaha maaragtay qaar ka mida kuwa ku abtirsada sheekh isxaaq ay dhashay wax caddayn karaya ma garanayna inagu nasal allah asalaama haddii aynu nidhaahno waxbaa caddaynayn de awal waa wiilkii koowaad wey awal cajuusa habar awal cajuus alawal nasal allah asalaama ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo khayrka iyo wanaag su-aaluhu way iska badan yihiin inta aan soo saaray in ka badan baad idinkuba soo saari kartaan idinkama caqli badni idinkamana maskax badni laakiin keliya kitaabka akhriya marka kitaabka aad akridaan ayad waxaan ogaanaysaan waxaanan ka warramay inay xaq tahay inay baatil tahay intaas waxa weeyaan waxay ku socotaa waa fariin ku socotaa sheikhi kitaabka qoray waxaan anigu ahay tuwaylib cilmi arday yar baan ahay marka haddii su-aalaha iga soo jawaabo tafsiiraadkaas noocaasa ina la siiyo baan rabnaa kuma eedaynayno beenaalada kuguma sheegayno laakiin bal dee waxaan waxwe qabiil dhan baa maaragtay ahlulbeyt noqdo ahlulbeyt noqdee de marka ahlulbeytka si axkaamtii sharciga diin alislaam loo siiyo oo ay u noqdaan ahlulbeyt oo sadaqada looga daayo xataa tagaaladu ay siinayso ama hay-adu waxay ay bixinayaan iyo ceelasha qodayaan iyo wadooyinka ay qodayaan waxaasoo dhan xaaraan bay ka noqonaysa tii muslimkaaba xaaraan ka noqonaysa nasal allah asalaama tii gaaladuna dee xaaraan bay ka noqonaysa sidoo kale muslimiinta adduunka ku nool wixii ay qaniimaystaan khumusul akhmaaskoodana dee in la siiya waa dood baa loo gelaya waxa leeyahy war dee qabiilkani waa ahlulbeyde mar haddii sadaqadii iyo zakadii laga bixiyay dee khumuskoodiina ha la siiyo marka si dee doodii loo weyneeyo arrintu ay noqota arrin cilmiyeyso oo culimmada islaamka o dhan ay soo guda gasho dee waxa weeyaan in loo caddeeyo ayaan rabnaa jasaakum allahu khayran waan ka xumahay haddii maaragtay dadka qaar aan maaragtay niyaddooda aan waxyeelay ama hadallada qaar ay maaragtay aanay ku idin qancinin ama aanay aydan jeclaysan khayrkuun baan jeclaa wuxun baan rabay in aan dadka xaqa uu waafajino alxaqu axaqu an yutabac wixii xaqabaa xaqu mudan oo xaqu leh in la raaco wixii baatilana dee lama raaco marka ilaahay subxaanah wa tacala ilahi waxaan weydiisanaynaa in uu barnaamijkan aan ka hadalnay inuu ka dhigo mid wax tare iyo mid wax bidhaaminaysa adiguna haddaad u baahan tahay arrintan aan ka hadlay oo aadanad igu waafaqsanayn keliya waxaa kugu filan marka hore kitaabka akhri kadib marka kitaabka akhrido ee aad fahamto ayaan ama doodii la geli kartaa ama aad adigu dib su-aalaha igu soo weydiin kartaa ama dib aad igu soo noqon kartaa marka insha allah shiikhii kitaabka qorani su-aalahaas way ku socdaan oo dadkii muslimiintaha way sugayaan culummada kale soomaaliyeedna de waxaan leenahay iyagana fariin baan u diranaayo de waxa weeyaan haddii cid ka mida qabaa'ilada soomaaliyeed ay iska sheegato aalulbeyt noocay doontaba ha ahaatee ama ashraaf ha sheegtaan ama daarood ha sheegtaan ama hawiye ha sheegtaan ama isaaq ha sheegtaan ama ciise ha sheegtaan noocaad doonaysid ahaw haddaad aalulbeyt aad sheegatay dee runta u sheega ilaahay ka cabsaday subxaanah wa tacaala iyo dee waxii inay sadaqa iyo sake qaataan waa inay xaaraan ku tahay oo aalulbeyt ay noqdaan waa in loo caddeeyaa marka intaana waa fariin aan u sheegayo dee culummada soomaaliyeed ee ka gaabsatay iska aamustay iyagana intaasan u faraya wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu